hawshan caawa halkan ka dhacaysa waa hawl aad muhiim uga ah dawladda federaalka oo dhan laga soo bilaabo madaxweynaha ilaa xubnaha kala duwan ee dawladda. caawa heshiiska halkan ka dhacay dhibkii aan ka heshiinay haddii aan dib ugu noqonno colaad kaliftay wiil iyo aabihiis laba isla dhalatay laba ilmo adeero ah dhalinyaro iyo waayeel meel ku wada koray inay is salaami waayaan ama isu imaan waayaan ma ka turjumaysa kaliya xaraale waxay ka turjumaysaa dhibka gaaray ummadda Soomaaliyeed waxa uu leeyahay halkan caawa halkan marka aad ku gaarteen maadan ugu heelina xaraale maadan ugu heelina mustaqbalka caruurtiina maadan ugu heelina dan gaar ah laakiin waxaad samayseen taariikh cusub oo iftiimaysa oo baal dahaba ka geli doonta taariikhda dalka Soomaaliyeed hadii Ilaahay reer galmudug halkan waxaa fadhiya odayaashii ogaasyadii aqaleyntii reer galmudug oo dhan waxaa laga yaabaa inay jiraan deegaano kale oo reer galmudug ah oo dhibkan oo kale uu jiro waxaa la rabaa tana inay noo noqoto tusaalihii koowaad laakiin aanan daalin inta meel walba oo dalkoo dhan ah laakiin hadda galmudugta aan joogno aan ka bilaabayno in lagu gaaro heshiisyo sidan oo kale ah oo sidii kii caawa walaalahaygii halkan ka hadlay qalbiga uga hadleen qalbiga ka yimaada haddii Ilaahay yiraahdo wax walba oo dawladda federaalka uga aadan si heshiiskani uu hirgalo waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan samayn doono haddii Ilaahay yiraahdo maadaama Ilaahay idinka idin nimceeyay marka oo kulli awlaaltiin xalay dadkii shirka ila fadhiyay ninka mid ah yiri kulligeen walaalana kulligeen nabadda iyo horumarka iyo jacaylka inay idinka bilaabato waayo maadaama walaalnimadiina kuwa kale ay ka dhowdahay shalayto sidaan xalay idin sheegay waxba kama qaban karno xalay waa xasuusataan meeshaan joognay caawana waa aragtaan meeshaan joogno jimcahana haddii Ilaahay yiraahdo waxaan joogi doonaa meel ka sii fiican dhisidda dawladnimadu waa intaas marka dawladnimada la idin sheegayo waa intaas waa inaan ku dhiirano inaan aqbalno dhibka nagu dhacay qalbiga u furno xalka isu dulqaadano raadino wax walba waan dalkeena ku horumarin karno wiilasha iyo gabdhaha jooga caawa xaraale farxaday ku seexanayaan kuwa qurbaha jooga farxaday ku seexanayaan odayaasha halkan jooga farxaday ku seexanayaan laakiin taariikhdan caawa baalka dahabka ka gashay mustaqbalkeena inaad ilaalisaan la idinka rabaa si aad u ilaalisaanna waa waxa aad kala tabanaysaan inaad iska shaafisaan dawladdu waa idin garab istaagaysaa waa idin la shaqaynaynaa marka ugu dambaysa laakiin mas'uuliyadda ugu weyn oo qalbiga la isu furaayo la isu tanaasulayo la is jeclaanayo la is walaashanayo la aqbalayo inay midnimadu xoog tahay kala qoqobnaantuna xoog tahay idinka la idinka rabaa inaad samaysaan